maxaa iska bedelay qaraxyadii kadib xeebta Liido xilli aan tagay xeebta ayaa waxaan u kurgalayay sida uu yahay jooga xeebta dadka badda ku dawaalanayo iyo dadka kale ee xeebta u imaada in ay qaataan hawada macaan ee badda dadka qaarkood oo aan la sheekaystay ayaa waxa ay ii sheegeen in ay cabsi ka qabaan ku dalxiiska xeebta Liido taa iyadoo ay jirtana marnaba aysan ka ahaan karin in ay ku damaashaadaan xeebta Liido inta aan ku guda jiray booqashada aan ku joogay xeebta Liido ayaan waxaa la kulmay dad iyagu ajaanib ah isla markaana ku damaashaadayay xeebta taa waxa ay ila muuqatay mid dhiirigelin u ah ummadda Soomaaliyeed maadaama shacabka Soomaaliyeed ay wali dhigahooda ka sii guuxayso dhacdadii xanuunka iyo ku-taalada ku reebtay ummadda Soomaaliyeed ee ka dhacday xeebta Liido dhalinyaro Soomaaliyeed iyo ajaanibtii xeebta ku damaashaadaysay oo aan kala sheekaystay dareenkooda waxa hadaladoodii kamid ahaa dareenkayga ma qiyaasi karo aad baan ugu faraxsanahay dalkeena isbedelka ma sha Allah wallahi farxadeedana ma soo koobi karin in badan ma sha Allah baahi macaanto isbedel oo sasuu jiray laakiin inta qarxeedi kadib maanta ka hor maba imaanbo maanta la imid qarxeedi kadib maantana ma sha Allah isbedel waatana jooga degan wada bashaala ay asxaabta oo jeeda dadka qaarkood waxay ka aaminsan yihiin xeebta markuu qarxa kadib ka dhac kadib in aan la iimaan karinaysan amniyahan maxaad u sheegaysaa dadkaas ma xeebta qarxa waa wax dhacda markii dhacdo ka dhacda waxa Soomaaliya kaliya ku kooban ma wax adduunka oo dhan ku kooban wax adduunka oo dhan ku kooban weeye wax Soomaaliya kaliya ku kooban ma ahan Mareykan baa qarxa ka dhacay Istanbul buu ka dhacay Turkiga ka dhacay waxaas bax lama joojiyo wax iska dhacay iska caadi weeye dunida dhan ka dhacay ma dhigi karo waxaas waa amni u yeelaya dunyada diyo bulshada asbar balan dilay zalman ama balan dilay ben Somali Mogadishu bence çok eski zamanlardan büyük savaşlar getirmiş ama maşallah yine kendini toparlamış. Mogadishu macnaha waxyaabo yar oo iska dhacay aad u fiican dawladda zaman. Ama ben hepsini çok seviyorum çünkü hiçbir zaman pes etmemiş. Wadankana aad u jecel aad dadkeena aad u jecel hiçbir şey gerek duymadan kendi kendilerini yani yetiştiren bir insan milleti yani. Bu dadka Müslümanlar wadana wadankana macnaha aad u wanaagsan yahay dhaqaalihiisa wixiisa laakiin dadka dees walaashan walba agaagayaan wallahi macaan badanay ma waxa santaras ma basiisin Soomaaliya aniga wax walba qadarta Soomaaliya maalmo badan oo hamin jiray inaan xaggan imaado waliba hotelkan aad baan u jeclaa inaan imaado maanta alxamdulillah waa ku kulanay oo ku faraxsanahay sanadii 2012 wixii ka dambeeyay xeebta Liido waxay ahayd goob ay u soo dalxiisaan shacabka reer Muqdisho iyo ajaanibta dalka timaada inta wixii ka dambeeyay Liido waxa ay kamid ahayd goobaha ugu amaanka badan magaalada Muqdisho sanadan cusub ee 2016 bisheedii koobaad habeenimo khamiis ay sii tagayso jimcana ay soo galayso dad Soomaaliyeed oo xeebta ku caweynayay mar qura waxa ay ka war heleen qaraxyo iyo weerar isla socday oo shacabku ay ku soo qaadeen xeebta Liido hadda waxay u muuqataa Liido mid ka soo bogsootay dhacdadii xanuunka badneed dadka Soomaaliyeed ayaa ah kuwa aan marnaba ka niyad jabin ku noolaashada iyo ku dalxiiska dhulkooda hooyo Deeqa Maxamuud Qaasim xeebta Liido magaalada Muqdisho